بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسينا وقبل الله وليا سورة آيات الصدنات سورة البقرة قرآنك قاببك وحو التربية أما الساليبته واستعماله وحكم ذا قاببك قصوينك إن ذاتك الله ورمه وقصوين هري معي وشوه عين الروح مركي أدوك سوء عنشري هي تاريخ ديسي هي بلشوينك أدوك الصومري مركو يحولا خبرتك هيستو oo waxa aqoon u leeyahay yaani waxay ku kaalmeynaysaa inuu fahmo nolosha uu ku nool yahay iyo waxyaabaha keena in noloshan adduunyadana uu si fiican u noolaado nolosha dambana uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa u helo cadaabka badbaado marka qaabka qisooyinku waxay ka mid yihiin asaaliibta aadka u qiimaha badan ee quraanku isticmaalo markuu bulshada la hadlayo ama tarbiyanayo halkan marka waxa laga guulgalayaa qisadii nabiyullaahi aadam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam iyo iblis waana ujeedada muhiima laga leeyahay oo ay ugu weyn tahay in layna dareensiiyo cadaawadda inaga dhaxaysa inaga iyo iblis wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala wadhkur waxaad xustaa id waqtiga qaala uu yidhi ربك ربك مركو يري للملائكة ملائكتي مركو كيري إني أنبو جاعل ندي ليامه في الأرض ذلك الأحدثة خليفة كو استقدم بيا ما ملكيدا يا عميري ديال استقدم بيا أيها يليا قالوا وحي لدى الملائكتي أتجعل ميادي يلي ألو فيها ملك دحدي سمياد يلي منعد يفسد فسادين فيها دحدها مكوى فسادين يا دحدها يلي ويسفك الضادين يا الدماء ديقاق الضادين ونحن أمونا والحال نحن أمونا نسبح أمو كنا زهنه أيضا لنا كافو غينين بحمدك أمه مهدين تانا كلها مهدين تانا للقوة ونقدس أنه كظهير إنه كوينين إن لك أذيك قال يقول رب سبحانه وتعالى يسوي ملائكته وتشواغية إني أنه أعلم وحيا أغهي ما لا تعلمون وحيدا أغهي آدم مركو دمع رب سبحانه وتعالى إنه أبوره يوم ملائكتي سلسة عدسي وورقلي معها إنه نطشني محايا لله سبحانه وتعالى عدنا نطشني لكن وورقلين لصعصين وورقلين ملك وحي يلي برب سبحانه وتعالى وملك كو أبوري عد مسؤولية دي حلك ملك يمام الكيس أكرا الدنبية خليفة رساسة لقوة هو الذي جعلكم خلائف الأرض ومعنى وقوة ملك أكرا الدنبية مركو جيل تقبع جيل خلاك الدنبيني markuu umay ay tagtaba tu kala uga dambeynaysa kuwa ka dambeeyay dhulka camiridiisii iyo maamulkiisii iyo waridiisii kuwa damba qabanay marka khaliifada saasa la yiraahdo isaga dambeynta way macna yaa lagu wada marka wa aadam alayhi salaam iyo caruurtiisa ka farcami doonto aadam iyo ubadkiisa way markaas waxa yiraahdeen malaa'iktii allah ma waxaad yeeli dhulka dhaxdiisa cid fasaadisa oo dhiiga gadaadiso islaysa oo maxay ku ogaadeen in dhiiga uu daadin doono caruurta aadam dhali doono way ma aha aadam nabiyullaahi aadam alayhi salaam inuu dhiig daadin doono laakiin ubadkiisa ka farcami doono way haddii la isweydiiyo malaa'iktu say ku ogaatay waxaa suurtagala cilmi khaasa oo horay u sii hayeen inay ku ogaadeen waxaa kaloo suurtagal ah
inay dabeecadda bini aadamka markuu ilaahay ku yidhi dhoobaan ka abuurhayaa dabeecaddeeda inay ka fahmeen inuu dhulka fasaadin doono inta waa suurtagal qowlal kalena waa la yidhahdaa iyagan marka dhiiggay daadinaya way fasaadinaya dhulkuu fasaadinaya waxa weeye dunuub iyo khaladaad iyo gaf badan buu dhulka ku samaynaya ilansaan horeyba usoo marnay dhulka waxaa fasaadiyey waa dunuubta ilahay uusan raalli ka ahayn subxana wa tacala ayib isla markaa waxay daba dhigeen anagu ku nasahayna nusabbixu annagoo ku nasahayno ceeb oo dhan kaa fogeynayna oo macnaha kuu tasbiixsanayna haddana ku mahadinayno oo ku mahadcelinayno ku ammaanayna ku dahirayna oo ku weynaynayna annagoo intaas samaynayna kuwo kaleeto oo dhulka fasaadinaya miyaad ku abuuri beli miyaad ku abuuri su-aashaas malaa'igtu ay jeedinayso ma aha iyagana inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay mucaaradsan yihiin arrinka uu u sheegay laakiin waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa su'aalu isticlaamin waistikshaafin can ilxikma wey waxay doonayaan inay ogaadaan xikmadda ku jirta yacni makhluuq noocaasoo dhulka saa yeeli doona abuurista aad ilaahu ku abuurayso bal xikmadda ku jirta noocadee noo sheeg marka waa cilmi doon iyo caddayn doon xikmadday doonayaan inay fahmaan mooye ilaahay ma mucaaradayn karaan malaa'igtu laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun kama aha marka ilaahay subxana wa tacala mucaaradaya maaha saas weeyaan rabbi marka waa uga jawaabay oo wuxuu ku yidhi innii aclamu maa laa taclamuun hal dhinacun baad idinku ka aragteen fasaad uu dhulka ku samayn doonee laakiin anigu waxaan ogahay waxaydaan ogeyn oo muxuu yahay fasaadka aad ku sheegteen inuu ku kici doono masaalixda uu qaban doono iyo wanaag uu dhulka ku samayn doonaa ka badan oo muxuu ku samayn doonaa nebiyaa ka mid noqon doona oo sidiiqiin baa ka mid noqon doona oo shuhadaa ka mid noqon doonta oo culimo caamiliina baa ka mid noqon doona oo dad ilaahay jannadiisa u diyaariyo akhyaara ka mid noqon doona oo cubaad baa ka mid noqon doona marka dhankaa unbaad ka fiiriseen laakiin masaalix kaloo fara badan oo idinka qarsoontay baa nabigu oga oo abuuristooda dhulka lagu abuurayo yani maslaxada ku jirta ka weyn mafsadada iyo dhibka idinku aad tilmaantayna ku jirta macnaha saasaa ilaahi subxana wa tacaala uu ku leeyay malaa'igta wadkur waxaad xustaa nebigu id taasaa waxaa loo soo qadaraa wadkur baa la iska soo qadaraa xus oo dadka u sheeg id waqtiga qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa markuu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta markuu ku yidhi innii anigu jaacilun baan ahay midkii yeelaya fi lardi dhulka dhexdiisa ayaan yeelayaa khaliifatan mid isaga dambeeya khaliifatan yani mid ilaahay wakiil uga amaah walaadada qaarna waxay yidhahdaan mid ilaahay wakiil uga ahoo dhulka khaliif uga sax maaha khaliifatan bimacnaa waxa weye isagaa u kala dambaynayo midi markuu ka tago ka dhintaba mid kalaa uga dambaynayo saas way macnaa sida aayado kaleetaba laga faa'idaysanayo qaaluu waxay yidhahdeen marka atajcalu ma yeeli allow fiihaa dhulka dhexdiisa mancid yusidu fasaadinaya fiihaa dhulka dhexdiisa oo wayasfiku daadinaya addimaaa dhiigaga daadinaya isagu islayn oo dhiig daadin waxaad garan kartaa fasaadka dhulka lagu sameeyo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah in dhiig xaqdarro lagu daadiyo oo dadka la iska dilo walxaal miyaad saas yeeli allow naxnu annagu haddaan malaa'igtiina nusabbixu aanu nasahayno adaanu kuna yani tasbiixda waxaa la yidhahdaa altanziih ceeb iyo dhimanaan iyo naqsi oo dhan oo ilahay laga fogayo subxana wa tacala leanna ilahay waa ceeb kasayn meelaa ceebi ka gaadha male dhimanaanna male ilahi subxana wa tacala annagoo ku nasahayno subxaanaka ku leh bixamdika weliba ku dheehan mutalabisiina xaalahaan ku dheehannahay bixamdika mahadintaadana aan ku dheehannahay oo aanu subxaanaka allahuma wabixamdika aan ku leenahay labadaasoo la israaciyey wanuqadisu aanu dahirayno ku weynaynayno laka adiga aan ku weynayno ku dahirayno qaala rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn hadalkan waxaa laga yaabaa in laga fahmo inay doonayaan bedelka aadam iyo ubadkiisa inay iyagu galaan saas sax maaha fahamka waa faham baciid wey ma aha annaga nagu bedelo meesha nageysa ma aha ee ilaahow addoommo wan wanaagsan oo annagoo kalaaba jire haddii aad kollay kuwa meesha geynayso yani kuwa aan fasaad dhulka ku samaynin maad geysidoo kale wey macnaha yani bal xikmadda ku jirta iyagoo waxaa ku kacaya inaad geysa maxaa ku jira saas weeyaan
hadday arrinkaasi marka malaa'igtii ka timid rabbina subxaana wa tacaala uu qorsheeyey inuu yani aadam abuuro soo malaa'igta in la qanciyo ma ah ilaahay subxaana wa tacaala isagoon qancinin buu dhihi karaa amar weeyaane qaata laakiin ilaahay subxaana wa tacala wuxuu jecel yahay addoommadiisa inuu qanciyo mar walba oo xujada u caddeeyo iyagoo qanacsan marka inay qaataan wixii rabbi la rabay subxana wa tacaala ayib waxaa loo muujin rabaa marka fadliga iyo dheeraadka aadam uu leeyahay wacallama alla wuu baray aadam wuxuu baray al asmaa'a magacyadii buu baray kullahaa dhammaanteed wax jiro oo dhan magacyihiisa la baray uma kadibna caradahum wuu bandhigay alla subxaana wa tacaala caradahum magacyadii buu bandhigay cala almalaa'ikati caradahumta magacyadii ha u celini caradahum waxyaabihii magacyada lahaa ayuu bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igtu u bandhigay faqaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala ambi'uunii ii warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda ii warramo ii sheega waxyaabahan agtiima tuban makhluuqaadkan allala ka batay ee meesha lasoo tubay bal magacyadooda ii sheega buu ku yidhi in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay bini aadamku dhulkay fasaadinayaan hadday runtiin tahay inaad abuurtana ama macnaha waxa weeyaan kuwo ka fiican ama abuuri lahay bal hadday taasi run tahay waxyaabahan magacyadooda sheega marka caradahumta asmaada sideedaba magacuna waa magacana shay buu magac u yahay dameer oo kale maalan waa magac shay dameer la yidhahdo magac u yahay marka waxaa loo bandhigay waxaa rabbi subxaana wa tacaala aadam uu baray magacyadii oo dhan iyagana waxaa loo bandhigay waxyaabihii magacyadaa lahaa geedkii yani waxa bini aadamkii xoolihii yani waxa weye dameerihii daayeeradii wixii magacyada lahaabaa loo bandhigoo lasoo hortubay markaasaa la yidhi waa kuwane bal magacyadooda sheega mid walba magaciisa sheegaa la yidhi saasuu macana ayib haddaad run sheegaysaan wacallama alla wuu baray aadam wuxuu baray al asmaa'a magacyadii kullahaa dhammaanteed kullahaadu waxay faa'iidaynaysaa yani in makhluuqaadka oo dhan magacyadooda nebi aadam la baray calayhi salaam waxayna yani ay meesha ka saaraysaa ra'yi culimmada qaar ka mida ay ku tageen oo yidhaahdeen malaa'igta iyo bini aadamka magacyadoodaa la baray aadam oo khaas ka dhigaya saa waa laga fiicanyay makhluuqaadkao dhan magacyadoodaa la baray iyadoo waxba laga soo reebin kullahaa dhammaanteed uma kadibna carada alla wuu bandhigay hum waxyaabihii magacyadaa lahaa makhluuqaadkii magacyadaa lahaa buu ilaahay bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta dusheeda u bandhigay faqaala wuu bandhigay macnaha wuu muujiyey waa loo soo muujiyey faqaala markaasaa wuxuu yihi ambi'uunii ii warrama biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda iiga warramo ii sheega in kuntum haddaad tihiin malaa'igtayda saadiqiina kuwa run sheegay warkiinii hore hadduu run aha bal waa kale oo aadam iyo caruurtiisa waxooga aad dhaliisheen kaasi hadday runtahay bal magacyadan waxyaabahan meesha yaalla magacyadooda sheegaa layidhi qaaluu waxay yidhahdeen subxaanak nasahnaantaada hufnaantaada aad ceeb oo dhan ka hufanta laa cilma wax aqoon ah iyo yani cilmi ah lanaa annaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye inaka adigu allow anta adiga ayaa alcaliimu midka cilmiga badan ah alxakiimu ee xikmada badan malaa'igtii way ka cudur daartee waxyaabihii loo soo bandhigay magacyahooda inay sheegaan imtixaan baa la geliyey maxaa yeelay haddaadan shayga garanaynin inaad iska qasbato maaha inaad iska qardo jeexdana maaha inaad iska mala awaashana maaha waa inaad tidhaahdo allahu aclam cilmigay ka mid tahay waxaadan garanaynin jawaabtiisu waa allahu aclam laakiin inaad iska jiidha maaha malaa'igtu marka way edebsatay intii tabarteediina way ku gaabsatay waxayna garanaynina iskumayna kallifine waxay yidhaahdeen allow yacni waanu ku nasahaynaa horta ceeboo dhan baanu kaa hufaynaa marka labaadna waxa weeyaan waxaadna bartay mooye wax kaloo naqaana maba jiraba kuwanna horay maadan noo barin xaggeen kaloon cilmi ka keenaynaa marka saas daraaddeed ma naqaano wey ma naqaano oo ka qurux badan wey
ma naqaano ka qurux badanoo ilaahay aad cilmigeedii u daysay wey allow intaadii bartay un baan garan intana inaadan barin saas wey macana cilmi oo dhanna adiga ayaa leh saas wey macana adiga ayaa waxaa tahay midka cilmiga yani shay walba cilmigiisa leh oo cilmiga dhammaystiran xakiim ahoo shay walba meeshuu lahaa dhiga xakiimka waxaa la yidhahdaa ruuxa yani aan la gafin xakiimka meeshuu rabay shayga inuu dhigo lama gafo ansar maseegtaynimu dhihi jira wadadadu yani meeshaad rabto inaad shayga dhigto lama gaftid shay walba iyo meeshuu ku habboonabaad isla heshaa xakiim baa la yidhahda ayib allah subxaana wa tacaala midka akhbaartiisa iyo hadalkiisa iyo axkaamtiisa iyo afcaashiisa mid walba meeshuu ku habboonaabuu alla dhigay subxana wa tacala xakiim wey qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii subxaanaka nasahnaanteeda alla waad hufan tahay laa cilma wax cilmiya lana annaga nooma sugnaanin waxyaabahaas aadna tustay magacyadooda cilmi uma lihin iyo aqoon laa cilma wax cilmiya lana annaga nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye innaka anta adigu alcaliimu baa tahay midka cilmiga badan alxakiimu oo haddana xikmadda badan baa tahay qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala malaa'igtii marka waa muuqataa inay ka caajiseen inay sheegaan waxyaabihii loo soo bandhigay magacyahooda qaala rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa aadamow ambi'hum malaa'igta u waran biasmaa'ihim waxyaabahan magacyadoodii bar baa la yidhi malaa'igta falamaa goortii amba'ahum uu u warramay anba'a aadam uu warramay hum malaa'igtii markuu u warramay biasmaa'ihim waxyaabahan magacyahoodii markuu u sheegay ayaa qaala wuxuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala alam aqul sooma odhanin lakum idinkastoo idinkuma odhanin malaa'igay innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati samaawaadka waxa ku maqan waalardi iyo dhulka wixii ku maqan wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa shayga kuntum aatihim taktumuuna kuwa qarinay aadam oo horay loo baray magacyaha ayaa waxaa la yidhi malaa'igtii hadday garan weyday aadam ugu sheeg bar baa la yidhi aadam wuu baray wuxuu ku yidhi kan dameer baa la dhahaa kan waxaa la bini aadam baa la dhahaa kan geed baa la dhahaa kan bad baa la dhahaa yani waxa waxyaabihii meesha lasoo turay wuu mid malaa'igta ugu sheegay soo macallinkoodii ma noqoni marka hadda miyay odhani marka waxa weeyaan yani miyay odhanayaan atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa soo warkaasi lagama daba imaanin fadligii nebi aadam calayhi salaam baa marka bannaanka usoo baxay maxaa yeelay yani nin ka cilmi badan oo wax baray oo iyagiiba macallin u noqday yaa meeshii ka soo baxay ayaguna waxay filanayeen oo nin uu wax fasaadiya oo wax dila oo wax kharbuda oo wax dhaca oo wax dilo oo wax ribo unbay macnaha sawiranayeen saasaa marka rabbi subxaana wa tacaala malaa'igtii ku qanciyey inuu macnaha waxa weeyaan maaragtay bini aadamka khalqigan uu abuurayo masaalix fara badan inay ku jirto dad badan oo akhyaara inay ku jiraan culima inay ku jiraan dhankaad ka aragteen keliya ma ah saasuu rabbi subxaana wa tacaala uu macnaha ugu muujiyey ayib markay garowsadeen aadam iyo cilmigiisa markay garowsadeen ayaa marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi soo idinma odhanin horaan waxaan ogahay dhulka iyo cirka wixii qaybkiisa ahee ku maqan ee idinku aydaan garanaynin baan ogahay soo idinma odhanin waxyaalo badan baa idinka qarsoonoo xogtooda aydaan haynin anigasta waxba igama qarsoono soo hore idinma odhanin waxaad muujisanaysaan iyo waxaad qarsanaysaanna labadaba waan ogahay soo hore idinma odhan waxaydaan ogayn hadda ka hor soo hadday meesha kama soo bixin oo ah aadamka la abuurayahay isaga iyo carruurtiisu inaysan fasaad ka wada shaqaynaynin ee qayb wanaagsani ay ku jiraan wax ka qarsoon bay laakiin ilaahay baa ogaa waana muujiyey saas way macnaha ayib qaala wuxuu yidhi yaa aadamu anbi'hum bar biasmaa'ihim kuwan magacyadooda bar falamaa goortii anba'ahum uu warramay oo uu baray biasmaa'ihim magacyadooda markuu u warramay oo mid uu ugu sheegay ayaa qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala alam aqul sooma odhanin lakum idinkastoo idinkuma odhan malaa'igtiyey innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba asamaawaati cirarka dhexdooda waxaa qaybkeeda ku maqan ku qarsoon waalardi iyo dhulka qaybkiisa ku qarsoon baan ogahay ku maqan
وأعلم وحكلون أوغا ما تبدون وحد موجينيسان إيه وما شيء كنتم آتيهم تكتمون كوقرني وحا أولي إذن كالصوبحين ونحبنه إنه أين السمينين ومبنانك إيماننا والأوغا waxa aad muujisateen oo banaanka keensateen oo afka kaga hadasheen ama adimada iyo xubnuhu sameeyeen waan ogahay labadaba waan ogahay saudimo oran rabbi subhanahu wa ta'ala saasuna ayadu marka waxay tilmaamay cilmiga samaawaadka iyo dhulalka ku qarsoon ee ghaybka ilaahay subhanahu wa ta'ala qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghayba illa Allah waxa samaawaadka iyo dhulalka ku qarsoon ee ghaybka ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkiisu waxay ka ogaan karaan in yaro uga iftiimiyey malaa'igta iyo nebiyada iyo sidiiqiinta iyo mu'miniinta iyo awliyada iyo waxoogaa ilaahay uga iftiimiyey oo can dariiqil waxyi looga iftiimiyey inbay ogaan karaan mooye in kale ka ogaan karaan ma jiro saas daraaddeed cilmiga qaybka ninkii dalba oo raadiya ama dhulka uu xariiqaha ku raadiyo waan faalinayaa buu leeyahay ama xidigaha oo fiiriyaha ku raadiyo ama kitaab uu kala furay ha ku raadiyo oo macluumaad ka fiirinaya uu leeyahay dariiqu dooriga uu isticmaalay ninkii ama weli baan ahay oo carshigan dalacda ha yiraahdo iyo yani waxa weeyaan iyo kitaabkan dalacda waa maxfuudkan dalacda ha yiraahdo ninkii qaybka raadiya oo dariiqa waxyiga jidaan ahay ku raadiyay waa nin muusan dadkana luminayo magacu door baa sheekay markaas wadkuru ala ustaad rabbi subhanahu wa ta'ala wadkuru waxa kawada ustaanabigu إذ وقت قلنا آمر للملائكة ملائكة مركا كلهم اسجدوا سجودا لآدم آدم اسجودا فسجدوا مركا سجودا إلا إبليس موي أباء سوى دين السجود واستكبرون اسكبريا واسنوا إلى وكان يحرأها من الكافرين قالوا لك مدح هرام بقال بوح هرام بعلم إله قال بوح صاصي معنا markii malaa'iktii ay garawsatay aadam iyo fadligiis iyo dheeraadka weli ayaa markaa kadib ilaahay wuxuu u sujuuda sujuudaas maxaa laga wadaa culimada qaar ka mid ah waxay leeyihiin foorarsada unbaa laga wadaa qaarna waxoogaa uu isu duleeyey laakiin sida saxda waxa weeye sujuuda sharcigu mar hadduu isticmaalo wejiga dhulka la dhigaa la yidhahdaa استعمال كتابك إيه السنة السجود استعمالها وجهه دولك لقال ليلة مركا السجود ليلة معاودة لقولا ماذا السجود إلهي با أمر كيرالي آدم نوالغو احترامي إلهي نوالغو أدعي إلا أن طاعده وحويان هدي إلهي ساس سميكو إلهي إنا تفلسو سيدو سميكو يريبا يبعادو كتبتصو marka aadamna ixtiraam bay u ahayd ilaahayna waa lagu adeecay subhanahu wa ta'ala sujuuda marka mid dhulka la dhigay sidaas macnaheedu waxa weeye sharciga isticmaalkeedu uu yahay quraanka iyo sunnada saas sujuuda u isticmaala malaa'iktii marka way sujuudeen kulligood ibliis mooyaan oo ibliis hadalkii malaa'ikta loo jeediyo sujuuda la yiri buu galay hadalka dadka loo jeediyo buu kamid ah kuwa loo jeediyo kamid ah tay oo malaa'ikta kamid ma hayna sabab u galay laana waxa sugan in laga abuuray naar baa laga abuuray malaa'ikana nuur baa laga abuuray isaga dab baa laga abuuray waliba hore dabka hore iyo ololkiisa laga abuuray malaa'ikana nuur iyo iftiin baa laga abuuray marka isku mid ma ah seebu marka u galay malaa'ik buu ilaa hadalka u jeediyay seebu hadalka u soo dhaxgalay wuxuu u soo galay malaa'iktu ku tirsanaayo ku dhaxjay ولو مادة لقى أبوري بحقيقة كي قدسناده لكن ملائكته معناه مركز كل حجري مركي هذا الكي إلهي أمرك وتشريه وملائكته انت هذه كلاهي قادتي استقوا مركا واديدي وهو اسلوين عليه واستكبر واسكبري قال بنا أمرك ورب ذاك هو سيد حجري مريه كافر بوكوا إلهي علمي جيس السابقة قال بوها كافر بوها واذكر واحد بالتنبي وإذ وقت قلنا أن للملائكة ملائكة مركا كلني اسجدوا سجودا لآدم آدم السجودا فسجدوا مركزي سجودا إلا إبليس موي أما واديري واستكبر وانا اسكبري استكبروا وحي تلماميسا صوبتك وحنبارتي إنو ديد السجود صوبتك وحنبارتي وحويا وكبري إسلوين وعقول صنيا أوليد يا آدم ما أريقوا الضبط كأبورتي بعد وحنا طولة كأبورتي وانو سجودي وانو تجدونا مركا يعني قوس يوحوها نفتي عجب جلسي أي معناه أديده واستكبر وكان وحرها من الكافرين قال هذا أيو كم من آيو مركي سورة قال بوحا ساس رب الله سبحانه وتعالى
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هل كامركي سجود الدين وحنوغو تجدونا في سورة الأعراف هي سورة كالتي قصة يومنا كياني لقاها الله ينوغو تجدونا مركي سجودي أودي إلهي والله عنه سبحانه وتعالى نحيستي سكفوغي مركي لما عنه كدبنا عداوات بوقاضي وقاضي آدم ينفر علي طيب عداوات مركو قاضي مركا كدب آدم تشمل قلي سوى عداوات قاضية وننكي معناه وحويا المارة عدوة بأمرك الله سبحانه وتعالى آدم أمر سيني وقلنا وحمل يا آدم اسكن دقبلي أنت أدق إيه وزوجك حاسكاك حواء الجنة جنة دقا وكلا عنا منها جنة حق روحت كعنتان رغدا أكلا عنتان رغدا أو واسعة مال إذن سوء علي سمالي نبقى اللهينو يعني أيضا كل بعضهم حيث شئتما مال الله ميشا دونتان ولا تقربا هنا دواننا هذه الشجرة جيدا نهو دواننا وجيد قولي وفرط الوثيقي مدا نهو دواننا اسكتشرا وفتكونا أضهاتان هذا دواتان من الظالمين كوى الدلميين نفطولا معصيدا أي قلين نفطولا كود الويل النغنسة مركز تشيرون نبي آدم عليه السلام markay malaa'igtu sujuuday kadib ibliisna banaanka ku dhacayo cadaawadiisii soo baxday ayaa jannada deglayay isaga iyo xaaskiisa Xawaa oo markaa isaga laga abuuray isaga feediisa ayaa laga abuuray Xawaa jannada deglayay midaway ma jannada dhulka ku taalay beer dhulka ku taalay mise janno sare oo samaawaadka ku taalay waxa loo badan yahay inay ahayd jannada sare inay janno sare ahayd oo middan macnaha waxa weeye jannada quraanka sunnada isticmaalan ay tahayna waxa laga faa'iideysanaya aayaadka soo socdo ilaahay degan ku yiri degan ruux dhulka jooga loo yiraahdo janno sare ahayd marka jannada deg baa leeyahay adiga iyo xaaskaaguna waxaad cuntaan cunitaan waasica cunid ballaaran meel alla meesha toontaan jannada ka cunaa laakiin halka geed iska jira waa geed xijaa geeda uu iska jira wixii kale dhan wada fasaxantay waa adigu hadda lagu sii daayay koonka ballaaran oo lagu yiri shay hebel iyo shay hebel xaraam ka ah wixii kale dhan xalaal buu ku yahay labadii shay xaraamta ay baleenay karlaa soo xalaashi oo arwada ka badatay labadii xaraamta baleenay karlaa marka halka geed iska jibaalay geedan laga reebayo waa imtixaan امتحان النبي آدم عليه السلام لقوا امتحانه هل كان جد سكتش بالي جدو جدي أهيد لين وجلي من جيرها جدي كأهيد شغل إنما ما صار معنا واذكر واحد قصائد وقت قلنا واذكر وقلنا واحد نبي يا آدم أسكن دق أنت عليك يا وزوجك حاسكاه الجنة جنة دق وكلا عرى منها جنة حقيقة رغدا أكلا عنتان رغدا أو واسع بلارا يعني عريري أهيد حيث شئتما مال الله ميشا دونتان كعنا ولا تقربها هندواننا هذه الشجرة جيدا هو دواننا وفتكونا آبهاتان هدادو دواتان من الظالمين آبكم النغتان كوة ظلم السمية قردرمه وقعي يعني كوة النفط الظلم حيث الروح مركو الدنبي قالوا نفتي سو ظلمي لذلك الدنبي قال كإيمانا للسلام بديه وصول نغل مركا الظالمين تعال النغتان فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه محاكا الدنبي مركا آدم تشندي دق إبليسنا العائلي فأذلهما أذل وسم بالرحيي إبليس هما لمضوا ذي برسم بالرحيي فأذلهما وسم بالرحيي لمضوا ذي الشيطان باسم بالرحيي عنها أي بسببها جدي سبب تذوق سم بالرحيي فأخرجهما لمضوا ذي وحو كساري مما كان وحي أهايين فيه دحديث وهي أي كل احترين وبرواقع هيدو بنانك وصو صاري وقلنا وحن نريد رب سبحانه وتعالى يعني اهبطوا خوفا ودقى بعضكم حال قاركين لبعض قارك كلا عدو العدوية إذنكو عدو يعول السوء الدقى خوص هذا ولكم وحن إذن سقنا في الأرض دولك تحديث مستقر مكان سقنا شوف meelaad ku sugnaataan oo degtaan baa dhulka ku leediin wa mataa'un iyo wax lagu raaxaysto ayaad ku leediin dhulka ilaa xiin muddo intii laga gaadhay shaydaan labadoodii wuu simbirixiyey azallada waxa la yidhahdaa zalalka waxa la yidhahdaa lugtu markay kuu fakato
simbira xataa la yidhahda waxaana laga wadaa khaladkii buu ku riday khaladkii iyo arrinkii loo diiday buu ku ridayoo intuu shukaamiyey oo qalqaaliyey ayuu aayar si fudud u geliyey arrinkii ilaahay iska jiray halkii geed buu ku riixay waana geedda keentay sababta ay meesha kaga soo baxeen maxoog buu adeegsamo u isticmaalay maya xoog uma isticmaalin iskiisabana xoog maba isticmaalaba laakiin muxuu isticmaalaa xeelad iyo inuu ku suudan salaaxo iyo inuu ku shukaamiyo iyo inuu ku qalqaaliyo iyo inuu si fudud arrinta kuu geliyo yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla buu ku yidhi aadamow geed haddaad cunto boqortooyo aan dhammaanaynin iyo nolol aan geeri ka dambaynin aad ku gaadhaysa ma ku tusaa aadam ilaahay dardaarankiisu qaba iska jir baa la yidhi markaba miyuu ku degdegaya maya waa ka istaagay markuu arkay inuu istaagan yahay oo warkiiuusan ku qancin ayuu u dhaartay wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin ilaahay buu ugu dhaartay inuu daacad u yahay oo uusan firaynin bini aadam marka waxaa laga soo galay laba arrimood oo aad uu jecel yahay maxay yihiin waa madaxnimo iyo nolol aan dhimasho lahayn waa labada maanta aan ku ibtilaysanahay sooma labadaasuu ka soo galay aayar buu yani suubaan salaaxay si fudud buu marka ugu riday macnaha faazllahumaa saasaa laga wadaayo halkii geed ee iska jira la yidhi ayuu si u qalqaalinayay buu ku simbirixiyey khaladkiibuu marka lugta kula dheh oo ay galeen way macnaha labadoodii ayib barwaaqadii ay ku jireen buu ka saaray isagaa sabab u ahaa inay ka baxaan barwaaqadaasoo ilaahay ka saaraayay sababtiisay ahayd saas daraaddeed baa laysaga ka saaray markii ay yani waxa weeye laga saarayna rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala dega idinkoo idil israaco hoos aada dhulka aada lay idinkoo weliba cadow isu ah ibliis iyo aadam iyo xaawo cadow bay isu yihiin aadam calayhi salaam carruurtiisiiyo umadkiisa dhalan doonana cadow bay isu noqon doonaan iyaga laftooda yani wax weeyaan waxbaa dhex mari doona hoos aada baa leeyi dhulka ayaa deegaan ku leedihin iyo meelaad ku xasisa makaano deegaan baad ku leedihin makaanu sugnaansho ilaan marka hore kor bay deganaayeen sooma dhulkaa laydin dejiye hoos aada leeyi waxyaaba lagu raaxaystaana dhulka idiin yaalla intii muddo laga gaadhay muddadaasi waa muddadeed waa ilaa adduunka laga duubi doono qiyaamada laga gaadhay ilan intaad aadam carruurtiisii unbaa dhulka ku raaxaysanaysa maa oo degan marka markii ilaahay waktigu ku talagalay la gaadho baa la duubi doonaayo la gebagabayn doonaayo laakiin inta ka horaysa weydinkaasaa la yidhi macnaha ayib faazallahumaa labadoodii ayuu simbirixiyey ashaydaanu shaydaan baa simbirixiyey oo khaladkii ku riday canhaa ay bisababiha dheh geeddii sababteeda ayuu ku simbirixiyey geedday cuneen baa sabab u noqotay inuu khaladka ku rido fa akhrajahumaa labadoodii buu saaray mimaa shay buu ka soo saaray kaana ay ahaayeen fiihi dhexdiisa oo barwaaqadii ah maalin jumcaa bay ahayd sida xadiista nebiga ku sugan sal alay wasalam maxaa yeelay maalin jumca baa ilaahay aadam abuuray jannadana maalin jumcaa baa la geliyey maalin jumca baana jannada laga soo saaray fa akhrajahumaa mima kaana fiih wa qulnaa waxaanu nidhi ihbituu hoobta oo dega bacdukum qaarkiin xaal uu libacdin qaarka kale caduwun cadow yahay idinkoo cadow isu ah walakum waxaa idin sugnaaday fi lardi dhulka dhexdiisana mustaqarun makaanu sugnaansho meelaad ku sugnaataan oo degtaan baad ku leedihiin dhulka wa mataacun wax lagu raaxaystana waad ku leedihiin ilaa xiinin muddo intii laga gaadhay waad ku raaxaysanaysaanoo waxaad dushiisa yaasana cunaysaanoo yani waxa weye meeshaasaad degaysaanoo weydinkaa wamataacun ilaa xiinin baan marka ku jirnaa saas macana ayib fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimatin fataaba calayhi inahu huwa atawaabu araxiim nabi aadam calayhi salaam facasaa aadamu rabbahu fagawa aadam marka khaladkii waa ku dhacay waa laga faa'idaystay ninkii cadowgiisa baa ka faa'idaystay xaggee buu u maray aadamna jannadii buu ku jiray ninkana waa la eriyey xaggee buu u maray soo su-aal ma allahu aclam jawaabteedu uta waa meeshaynu lahayn yani qisas israa'iiliya ku soo arooray laakiin maadaama ilaahay uusan noo sheegin nebiguisuna uusan noo sheegin kollay uu la xidhiidh oo soo suurtagal maaha isagoo dhulka jooga kana jannada jooga inuu la xidhiidho soo lama xidhiiri karo muxuu la xidhiiri waayo adduunka cidhiftiisa annagoo joognaa cidhifta kale mid joogaan la xidhnaa inaga telefon baynu u dirnaa ama email baynu u dirnaa waa inagoo bini aadama tabarteenu intan tahay
calam laga xoog badan maxaa umalanaysaa marka way suuroobi kartaa marka wax mustaxiila ma aha laakiin qaabkeebuu maray allahu aclam saas way macna ayib fatalaqaa wuu kulmay aadam baa la kulmay min rabbihi rabbigii xaggiisa wuxuu kala kulmay oo ka qaatay kalimaatin weerooyin erayooyin buu ilaahay xaggiisa ka qaatay oo uu ka helay fataaba calayhi markaasuu alla ka toobad aqbalay maxaa yeelay inahu alle huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan alraxiimu ee naxariista badan alla subxana wa tacala kelimaadkaasi nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu khaladkii ka dhacay uu ilaahay xaggiisa ka helay ee lagaga toobad aqbalay waa kuwa inoo imaan doona rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alkhasiriin intaasaa la baray alla waanu dulminay naftanada haddaadan noo naxariisanin oo noo dembi dhaafinna kuwa khasaaraanu ka mid noqonaynaa kelimaadkaasoo ilaahay uu baro xagga ilaahay laga baray buu ilaahay ugu noqdo ugu toobad keenay kadibna ilaahay toobadii buu ka aqbalay maxaa yeelay ilaahay yani caadadiisa waxay tahay inuu addoommadiisa hadday soo noqdaan ilahay subxana wa tacala u noqdo oo toobadda uu ka aqbala way macana fatalaqaa wuu kulmay oo wuu qaatay aadamu aadam min rabbii rabbigii xaggiisa wuxuu ka qaabilay oo uu ka qaatay kelimaatin kelimooyin weerooyin iyo ereyooyin uu ku toobad dalbayo fataaba markaasuu alla ka toobad aqbalay calayhi dushiisa maxaa yeelay inahu alle huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan wey alraxiimu oo naxariista badan addoommadiisa aada uga toobad aqbala darsi bay inoo tahayoo nasiya aadamu fanasiya banuhu wey yacni aadam waa halmaamay carruurtiisuna way halmaami kollay khaladka waad gelaysaane laakiin aabbihiin jidkiisii marahoo khaladka markaad gashaan ka soo noqda khalad maxaad u gelaysaan laydin dhihi maayo laakiin waxaa laydin dhihi maxaad ugu madax adagti maad soo noqotaan sidii aabihiinba usoo noqday aadam calayhi salaam qulna hbituu minha jamiica qulnaa markaa waxaanu yidhi buri rabbi subxaana wa tacaala ihbituu hoobta minhaa jannada ka hoobta jamiican idinkoo idil kulligin faima yatiyanakum dhulka aadow faima ya'tiyannakum haddii uu idin yimaado minii aniga xaggayga hadduu idinka yimaado hudan hanuun hadduu idin yimaado oon kutub iyo rasuul soo diro faman tabica ciddii raacda hudaaya hanuunkayga falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahan adduunka waxaan u jeedaa mustaqbalka ka cabsan maayaan walaa hum mana aynan ahan yaxzanuuna kuwa murgoo adduunka waxay kaga tageenna ka murgi maayaan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaari naar dadkeed weeye hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeday khaaliduuna kuwa ku hareeyay dega baa layidhi hoobta maxaa loo soo celiyey hoobta waaba tii horay loo soo yidhi ihbituuna maxaa loo soo celiyey waxaa loo soo celiyey middii hore hadalka ku xidhnaa ee daba yaalay iyo middan hadalka ku xidhan baa kala ah middii hore waxay ahayd ihbituu bacdukum libacdin caduwun dega dhulka ayaa deegaan ku leedihiin iyo makaanu sugnaashee soomahayn saasaa loo keenay tanna waxaa loo keenay dega oo hoos aada idinkoo idil haddaan hoos aadna allow annagii adigu miyaan kala goonay naxariistaasi ma saasaan kaga tagnay bas miyaa maya hadday hanuun xaggayga ka yimid idin yimaado dhulkii baad tagteen soomaa hanuun kay ah hadduu idin soo gaadho oo hanuunkaas muxuu yahay kutubtuu ilaahay soo dejinayo iyo rususha uu soo dirsanayo addoommada uu soo dirayo wey hanuunkaygaasi hadduu idin yimaado hanuunkayga ruuxii raaca oo intuu rumeeyo raacay cabsan maayo mustaqbalka mawdka iyo geerida iyo wixii ka dambeeya qabriga ilaa qiyaamada ilaa meesha lagu dambayn doono cabsan maayo mana murgi doonaanoo adduunka waxay kaga tageenna u walbahaari maayaan sababtu waxa weeye haddii wax wanaagsan aad ka timid wax ka wanaagsanna lagu siiyey kii hore miyaad u walbahaari maya aakhare hadday tageen wax adduunyadiiba ka indhasaabay iyo wixii yaallayba ayuu ilahay siinaya subxana wa tacala ayib marka labadaa qolo waa qoladaas qolada labaadi waa kuwa beeniya aayaadkaygu markay u yimaadaan hanuunkaygu markuu u yimaado ciddii gaalowda oo aayaadkayga beenisa kuwaasi naarta dadkeeda wey kuwaasina waa naarta dadkeeda aayaadka beeniye gaaloobay wayna ku waari buu rabbilahi subxana wa tacala saas faima ya'tiyannakum minii hudan faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa hanuunkayga ruuxii raacay adduunkana lumi maayo
آخرنا هوغي مايو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذكري جاي الروحي كتشت سدنا ووحيجي أن كيني هنون كان إذن صدر الروحي الدينوس كتشت سدنا نظل عديد أبو أدونك كله هاي ونحشره يوم القيامة أعمى ما ننت قيامتنا إسقوا إن ضلاء من كيرينا سواسا لو عدام يا معنا تنصصي وكلام أحمد هنونكو هدو إن السوق على ولا قيود الله قربي قريب قال وإلهي وعذاب كواريو قريب هنونك إلهي حقي سكتي مد الرعبة قريب هنونك الرعبة مركا والله قصوا بالله رسوشة يبكي الرعسناوي وما به رسوشة الرعسنا أيها هلك سوى ذقلية كي قيبت كلنا وحا كليسة كوحبي بينيسي ومنافقين تيا قالوا معنا أيها هلك قلي قلنا وحا نلئهبطوا غض ساسي معنا مركا ميزانك إلهي الدومديسة يعني وحو ينكوك الهرماني أما وحكو السيني أما كي قدني واقع هنون كي مرة علي مثل ماذا رأي لكن كان قروح ضلن كان حول لها انتري كان أدونك معقولها كان معناها النصب ورسلها يعني كان مدحويناها وركاس إلهي كسمية الله سبحانه وتعالى هنون كي مرة علي قلنا هرات كجرت هنون كي مكتك سيو مبينيسي قلنا كبات كجرت ورقوا انت معنا قلنا وحن إهبيتوا هبتا منها جمد حقنا كهبتوا دقا جميعا إذن كويدن فإما يأتينكم هدو إذن يمادو مني عليك حقا هدو إذن كي يمادو هدى هنون وكتابت عن سودة جنة يهدى إذن تماد فمن عدي طبيع الرعض هدايا هنون كي الروح الرعاي فلا خوف وحصي عليهم دشوا ما هان مستقبل كعبس المايا ولا هم من أينما هان يحزنون كوان مرقو من مرقيان وحي هري وقتغين وقافينا كمرقي مايا محايا الوحكة ولا سنبالسين والذين كوا كفروا قالوا بي وكذبوا بيني بآياتنا آيات كنجا بينيين أولئك كوا أصحاب النار تدت كيدوي هم إيقنا فيها النار تدحي خالدون كواريا انت سي قصدي oo si gaaban looga hadlay baa laga baxay suurada kale ku imaan doonta saan hore ugu sheegnay quraanku meel ama suurad dhexdeeda arin lagu gaabiyay meel kale lagu faahfaahin intaas hadda meesha laga hadlay ujeedada laga leeyahay qisadaas waxa weeye waa digniin warbini aadamow saasuu shaydaan idin galay oo idin ka lugmeersaday oo aabihiin yani waxa weeye u khalday cadawgii isaga ahaabana adduunka idin la joogay isjira إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا عدو كدتو منك اسكتشنا عداودي الدينون من هذا بالله معه ومد مركي ليدين أموريما كسو بالله مركي لباد وياني عداود هشيس لقاق الكرماء لأنهم كهذا دون عداودين الأحمرت أن هشينا صلواتكم لكن إبليس عداودي سي الشيطان مين هشيس كاق الكرماء ووان ملئ وهشيس ملئ وملع على سوي مادة ملئ مركور منك اسكتشنا ومعنا قصة مهمة وطع يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فرحبون هل كان وحا ليقود قلي قصة لقود يران دونه وهي بني إسرائيل وأمدي نقوه الرئيسية أمدي نقوه الرئيسي الرسول شفراء بن الله صادري أيها ريب بني إسرائيل ريب بني إسرائيل سيئو نقمين سيء إلهي كتبتي سيئو نقمين رسوشي إلهي سيئو نقمين ومحال إنه كفائدنا إنه أغان ريب بني إسرائيل يبغن كودي وحينه كفائدنا خلطات كي قليلا اسكتشرا ماليه أيكو خلطمين كوريك سدا وناك قلوا أماننا السمية ساسا معنا وحوي درسي ولا فايديسن وحيابيه ريب بني إسرائيل أيكو حمايين والليدين شيقي اسكتشر ساسو معنا ريب بني إسرائيل بأمريكا قصده دي لقالي رب وحوي سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل عرورتي سيو عرورتي إسرائيل والنبي يعقوب مجعيسو حديث صحيح والنبي إنك سوى صلى الله عليه وسلم إسرائيل والنبي يعقوب مجعيسو مركع عرورتي إسرائيل اذكروا حصة وحصوص نعمتي أني نعمتي نعموين كيكي حصوص التي نعموين كسو أنعمت أن نعي عليكم بشين أن يكون نعي أوفوليا بعهدي بلنكي أوفي وانفلين أنقل أوان أوفيني بعهدكم بلنكيني وإياي أنيك كليين فرهبوني إقعب صدا في بني إسرائيل يعقوب إلا كفر عمل
nebi yacquub calayhi salaam ayay ka farcameen reer bani israiil nimanka la yidhaha reer bani israa'iil yani waxa weeyaan lafahooda kala gedisanba nebi yacquub bay ka farcameen isaga ma loogu yeedhayo marka war caruurtii yacquubow baa laleeyahy isaga maxaa loogu yeedhaya waxaa loogu yeedhayaa nebi yacquub nebi ilaahay oo wanaagsan soo maahayn adiga hadduu nin sheekha ku dhalay allaalaab iyo edadarrana aad ka bixi weydo soo lagu dhihi maayo war ina sheekha waxaa laga wada aabbaha waa fiicnaayo fiicnow waxaa lagu dhihi yabna alcaalim utlub ilcilma war sheekhka wiilkuu dhalayo war cilmiga baro yabna sakhiy yani waxa wey war beeqsigu wiilkuu dhalayo wax bixi war aabbihiin ku dayda wey macnaha nebi kariimo wanaagsan baa idin dhalayo wax muxuu wareer kalaan wadaan saasaa marka nebi israa'iil nebi yacquub calayhi salaam loogu yeedhaya oo loo leeyahay yaa bani israa'iila israa'iil carruurtiisiiyow udkuruu nicmati war nicmadaydii xusuusta nicmadu hal mid ma aha waxaa la yidhaahdaa waa mufrad mudaaf ilaa macrifa cumuum buu faa'iideeya baa la yidhahdaa sida cilmul usuulka muqararka ku ah yacni nicmooyinkaygii xusuusta wey nicmooyinkii faraha badnaa idiin nimceeyey ballankii aan idinla galayna ka soo baxo si buuxda u fuliyey muxuu ahaa ballanta ilahay la galay ballantuu ilaahay la galay waxay ahayd kitaabkii tawreed ahaa iyo kitaabkii injiil ahaa iyo kutubta ilahay xaggiisa ka imaan doonto oo dhan inay qaataan kitaabka tawreeda wuxuu qorayey nebi maxamed oo dib ka imaan doonana rumeeya kitaabka uu la imaan doonayo sharcigiisana raaca ballantii aan idinla galay warnimayaho yani fuliya haddaad fulisaan aniguna ballantiinii baan fulin ballantuu ilaahay u qaaday maxay ahayd abaalgud wanaagsan baan idin siino waan idin jannayn haddaad doonaysaan tiinni inaan idin fuliyo tii aan ila gasheen ka soo baxa bu rabbilahi subxana wa tacaala aniga keligayna iga cabsada wa iyaaya aniga keligayna farhabuuna iga baqa waxay la mid tahay iyaaka nacbudu oo kale soo maha iyaaya macmuulka la hormariyey keligay wey oon laylabaynin iga cabsada cid kale ha ka cabsanina saas macna yaa bani israa'iila udkuruu xusa nicmatii nicmooyinkayga xus nicmooyinka loo galay way badnaayeen nebiyaal buu ilahay ka soo saaray subxana wa tacala ambiyada intooda badan ambiyada iyo rususha intooda badan iyagaa laga soo saaray waxaa ka mid aha boqorruu ilaahay ka dhigay subxana wa tacaala niman madaxa oo adduunka hogaamiyuu ka dhigay waxaa ka mid ah arrimaha inoo soo socdo manni iyo salwa ayuu ilahay subxana wa tacala u soo dejiyey waxaa ka mid a ayagoo tihii ku jira waa kii dhagaxa biyaha looga dilaaciyey waxaa ka mid a maalan gumaysigii fircoon oo ilahay uu ka badbaadiyey wax fara badan oo nicmooyinoo soo socda ayaa ilahay ugu nimceeyey subxana wa tacala war nicmooyinkayga xusuusta allatii nicmooyinkaasoo ancamtu aan nimceeye calaykum dushin wa awfuu oofiyo si buuxda u fuliya bicahdii ballankayga uufii waan fulinayaa bicahdikum ballankiinni aniguna ballankiina waan fulino waan oofinayaa wa iyaaya aniga keligayni farhabuuna iga baqa bu rabbilahi subxana wa tacala iga cabsada wa aaminuu rumeeya bimaa shayga anzaltu aan soo dejiyey nebi maxamed waxaan kusoo dejin rumeeye musadiqan xaalo uu yahay kaasi mid rumaynaya limaa shaygii macakum la jirankiina wuxuu u markhaati kacaya kaad horay u haysateen walaa takunuu hana ahaanina reer bani israa'iilow awala kaafirin gaaloobe kii ugu horreeyey bihiisaga ku gaaloobe kaa aan soo dejiyey kooxdii ugu horraysay ku gaalowday ha noqonina walaa tashtaruu ha gadanina biaayaatii aayadahaygana iyo waxyiga aan soo dejiyeyna hamanan lacag ha ku gadanina qaliilan oo yar waxoogaa adduunyaha ha dhaafsanina wa iyaaya aniga keligayna fattaquuna iga baqa walaa talbisuu ha qasina alxaqa xaqa ha qasina bilbaaili baatilka ha ku qasina wa taktumu alxaqa walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqana ha qarinina walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtiin ayagiibaa hadalkii loo wadaa hadalkani qolyaha ugu dhacayaay waa nimankii joogay waktigii nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh nicmooyinkan in badanoo ka midana waxaa loo galay awowyadood baa loo galay marka awowgaa nicmadii loo galay adigana waa lagu galay soo saas maaha nimankan kuwa lala hadlaya waa kuwa waktiga nabiga joogay sal alay waslam waxaa la leeyahay war rumeeya kii aan soo dejiyo nebi maxamed kusoo dejiye waa qur-aankee isagoo weliba kii horay aad u haysateen aan khilaafsanayn ee u markhaati kacayo rumaynaya kii aad haysateen oo kay haysteen muxuu ah kitaabkii tawreed aha buu markhaati kacay maxaa ku yaallay kitaabkii tawreed ahaa kitaabkii tawreed ahaa waxaa ku yaallay nebi maxamed baa imaan doona carab buu ka soo bixi doonaa
يعني وحي كتاب كاسوة tilmaamaha iyo astaamahaasuu leeyahay wixii ku yaalay tawreed buu kitaabkanina sheegay xaqiiqadiisii baa timid marka waa markhaati wuu rumaynayaa wixii tawreed ku yaalay waa midda labaade tawreed ma beeninin oo tawreedi ma jirto ma odhanine kitaab tawreed la yidhaahdo nebi muuse ku soo degay ayuu qiray kitaabkan qur-aankii marka warkaan haysateenna wuu u markhaati kacayaayo wuu rumaynayaa ee ma khilaafsana xadiidine marka qaata wey saasaa lagu leeyay kooxdii ugu horreysay reer bani israa'iil ee beenisayna ha noqonina ee diiday walaa takunuu awala fariiqin kooxdii ugu horreysay ha noqonina oo kaafirin ku gaalooday bi isaga kooxdii ugu horreysay reer bani israa'iil ee diiday ha noqonina maxaa loo leeyahay reer bani israa'iila leanna carab baa ugu horreysay beeninta sooma ila nebiga markaa laga soo saaray sal alay slam carab baa markii ugu horreysay diiday ayaga kuwa lala hadlayay madiine joogay waa kuwa laleeyahay reer bani israa'iil kooxda ugu horreysay beenisa noqonina marka reer bani israa'iil la yidhahdo macna aayaadkaygana ha ku bedelinina waxoogaa adduunya waxaa loo leeyahay culimadoodii iyo dadkii hoggaanka u ahaa baa waxoogaa madaxnimo ilaashanaya ayaga reer bani israa'iilna adduunka dhan baa waxay lahaayeen annagaa adduunka ilaahay rasuul naga soo dirayoo carabta yasi jireen ma carabtan yani xoolo dhaqatada ee masaakiinta yaanu hadda u daba istaagaynaa bay leeyihin macnaha diin u daba istaagayna ma wiilka yarkay agoonkaa baanu annaga aan dabagelayna ragganagii odayaasha ahaaye madaxda ahaaye yani xukamada ahaaye bulshada hortaagnaaye diinta looga dambeeyey miyaa maanta wiil yar daba fadhiisan warsaaha odhanine waxoogaagaa adduunyada iyo dheefteeda aayaadkayga ha ku bedelanin ee aayaadka qaata saasuu rabbi ku leeyahy subxana wa tacala ayib waxaa kaloo lagu yidhi aniga keligayna iga baqa hana isku khaldina oo ha isku badxina xaq iyo baatilka xaqu waa cad yahay baatil ha ku darinoo dadka ha khaldina dadka jahwareerinta ka daaya oo xaq iyo baatilka iskaga darina ilan kuwa lala hadlaya waa culimadoodii dadweynahan marka ay qasayaan oo xaq iyo baatilka iskaga dhex dareen baa laleeyahay war iskaga dhex darina xaqana ha qarininee muujiya maxamed waad ogtihiinoo waa taqaanaan inuu nebi ilaahay sidaad carruurtiina u garanaysaa maad u garanaysa idinkama qarsoonaa ee dadka ha ka qarinine u sheega ayib idinkoo og ha qarinina idinkoo og qarinta xaqa ama ogow ama ha ogaanine waa khalad sooma haddana wuxuu khaladku sii daran yahay markaad og tahay inuu xaq yahay qarintaadana aad og tahay markaa sooma sii darra leanna waxa weye ruuxa hadduu arrinku jahli u geeyo iyo garasho la'aan waxoogaa daruura buu leey daruuro yar buu leey haddiise laakiin isagoo og oo uu garanayo uu kas u jiiro hadda markaa rajo male sooma warninkoo garanaya saa yeelinayo macnaha oo og arrinka macna wa aaminuu rumeeya bimaa shaygii anzaltu aan soo dejiye rumeeya nebi maxamed aan ku soo dejiyey sal alay slam oo qur-aanka musadiqan xaala uu yahay mid rumaynaya limaa shaygii macakum idinka la jirankiina kii aad haysateenoo tawreed ahaa buu rumaynaya walaa takunuu hana ahaanina awala kaafirin awala fariiqin kooxdii ugu horraysay reer bani israa'iil ah oo kaafirin ku gaalowday bihi qur-aanka walaa tashtaruu ha gadanina biaayaati aayadahayga ha dhaafsanino ha ku gadanina hamanan lacag qaliilan oo yar lacag baa laga cabira lakin waa adduunye un kulligeed madaxnimadeeda iyo barwaaqadeeda iyo xoolaheeda iyo carruurteeda kulli markii la isu geeyo aakhara markii la garab dhigo soo wax yar maaha waa hamanan qaliila wey waxaan qiimo lahayn wey macana ayib wa iyaaya aniga keligayna fattaquuna iga baqa oo cid kale ha ka baqina walaa talbisuu ha qasina oo ha khaldina alxaqa xaqa ha dheehina bilbaatili baatil ha ku dheehina oo ha ku qasina wataktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqa ha qarinina walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtiin inu xaqi idinkoo og inuu xaq yahay haddana ha qarinina wa aqiimuu tuusiya asalaata salaada tuusiya wa aatuu siiya oo bixiya azakaata zakadana dadkii mudnaasiya warkacuu rukuuca maca araakiciina kuwa rukuucsan la jirankoodana rukuuca salaada tuusiya layidhi innagana taasaa layna faray sakadana bixiya layidhi diintooda inay zaka bixiyaan way ku jirta laakiin reer bani israa'iil zaka bixinaya miyaad aragteen way bedeleen salaada tukada layidhi rukuuca baa layidhi kuwa rukuucsan la rukuuca waxaa la leeyahay rukuucadaantaan la leeyahay culimada qaar waxay leeyihiin kuma jirin salaaday tukan jireen rukuucii kuma jirin rukuucadani marka waxa weeye qaata salaada nebi maxamed uu la yimi sal alay waslam ee rukuucda leh rukuucda marka salaadii oo dhan baa laga wadaayo waa min baab yani tacbiir ljuzi wa iraadati lkulli wey qayb baa la cabiray salaada ka mida
salaadii oo dhan baana loo jeeda dadka tukanaya la tukada saas macna ayadu waxay tilmaamaysaa salaadaha in wada jir loo tukado oo masaajidda lala yimaado salaadaha waajibka inay laazim tahay tilmaamaysaa laana waa amarkuna waajibnimo iyo nuzuul faa'iideeya axaadiista nabiguna oo markaad ka haysa salaatu rabbi sallallahu alayhi marka guri lagu tukan maayo salaad waajib ee masaajidka lala yimaado saas weeyaan tayib وعقيموا توسيع الصلاة صلاة توسيع وآتوا سيا الزكاة زكاة نسية وضدك مضاسية واركعوا الركوع أو تكلا مع الراكعين قوة تكلا ينشروا قوة تكلا أتأمرون الناس ورددك موحد أمر إسان بالبر ولا جميع فريسا الصراحة هي خير كمية ضدك فريسا وتنصون مئة كتجيسان أنفسكم النفافيالكين والحال أنتم إذنكم تطلون على آخرين إنسان الكتاب كتاب كهذا إخرجسا أفلا تعقلون ميدا عقلنا إلى وحقرنين واستعينوا كالميستا بالصبر كالميستا إيا والصلاة صلاة الوضع كالميستا يعني الدنيا نقو كالميستا وإنها صلاة لكبيرة ومد وين أو عرس إلا على الخاشعين كوا خشوع سن بشر مويه dadka intooda kale way ku awintayo way ku culus alladina khashi'in taso yadhunnuna hubade oo huba annahum yagu mulaqu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan wa annahum yagu ilayhi alla xaqiisa raaji'una ku noqonaya ilayhi hadalka waxa loo jeedin nimankii madaxdooda ahaa iyo culimadoodii war dadka ma wanaagaad faraysaan idinka nafihiinana ma ka tegaysaan haddii waxani khayr yahay oo faa'iido yahay inaad naftaada ku hormariso yani waxa la leeyahay waxay dhihi jireen dadka qaarkood si dhab ah markay u wareystaan maxamed iyo diintu la yid waa xaq raaca bay jireen marmar markay laalushiyo waxba inay ka rajeynayeen warkaas aadi jireen marka warma dadkii baad wanaagga u sheegaysaan nafihiinana ma ka tegaysaan idinkoo weliba kitaabkii arrinkaa diidana akrinay kitaabkii arrinkaa diidayay oo tawreed ahaana waad akrinaysaan khaladkii uu diidayana waad samaynaysaan ee miyaedaan caqli lahay haddii cilmigii iyo kitaabkaad akrinayseen uu arrinkan idinka reebi waayey waayo caqlina ma idinka reebi waayo caqlina idinkama reebin cilmina idinkama reebin intana waa haysaan wixiina sidaan aad u qasaysaan warrankaas soo arrin khalada ma saasaa leeyahay macnaha kaalmaysta sabirka iyo salaada sabirka waxa weeye saddexdiisi nooc baa soo geliyay waxa weeyaan in ilaahay daacadiisa aad ku sabirto ood nafti ku celiso laanna daacaadka naftu way ka carartaa macsiyada iyo dunuubtana inaad ka celiso nafti ood ka xakamayso laanna way doonaysaa ilaahay wixii uu kuu qadaray oo musiibo ah oo kugu dhacdana inaad ku sabirto sabirka noocaasoo kale ah kaalmaysta oo macnihiisu saas yahay salaadana kaalmaysta rabbi subxana wa tacaala salaada kaalmaysta waxa weeye hadday ay arrin kugu timaado oo culays kugu yimaado ama mid adduunya ama mid aakhira salaada loo carara nabigeena sidaas waa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa sida ku soo aroortay hadduu nebigu arrin murug geliso salaaduu nebigu u degdegi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka salaada kaalmaysta salaadiibaa waxaa la yidhi way culusta waa weyn tahay ilaa dadka khushuuca mooye salaada waa weynta maxaa laga way culusta way dhibday ku tahay dadka kuwa khushuuca mooye inta khushuucda laakiin way macaansan khushuucda maxaa la yidhahdaa khushuucda waxaa la yidhaahdaa waa arrin qalbiga ku dhalata kadibna xubnaha saamaysa xasilooni qalbiga gasha markaa kadibna xubnaha ku timaado xubnaha saamaysa way macnaha madaxa hoos loo foorriyana maaha indhaha laysku qabtana maaha waa ruuxu inuu qalbigiisu ilaahay u dulloobo markuu qalbigu ilaahay u dulloobana xubnuhu ay dulloobaano ay u hogtaan ilaahay subxana wa tacaala kuwa noocaasoo kale ah salaadu waa u fududa salaadu way u fududa bal raaxay u tahay wajucilat quratu cayni fi salaam nabi sal alay slam ilqabowsigaygiiyo raaxadayda waxaa la yeelay salaada dhexdeeda laakiin goormay salaadu raaxo noqon waa markaad ku khushuucdo oo ay kuu dhandhanto oo waxa la aad akrinayso aad fahanto oo qalbigaaga ula socdo oo aad joogto markaasaa macnaha waxa weye salaadii ay ku fududaanaysa gooraad tukatay 10 ragcadood iyo 11 ragcadood garan maysa soo ma laakiin haddaadan khushuucsanayn 4 ragcadood baa waxay kugu noqonaysaa yani waxa weye maanta dhan waqtigaaga inay qaadatay marka waxa weye illa cala alkhaashiciin khaashiciintaasi waa kuwa huba inay rabbigood la kulmi doonaan aakhara u muuqata kulanka ilaahay ay la kulmi doonaan
inay isaga u noqon doonaan bay hubaan kuwa sidaa qalbigooda uu ku jiro kuwa way kuwa khaashicinta salaada u fudaanaysa macna ata'muruna ma waxaad faraysaan annaasa dadka miyaad amraysaan marka aayaddu haba ka hadasho reer bani israa'iil laakiin ummadana way ku saabsantay ilaan qur-aanku gaalo uma soo degin muslimiintu u soo degay soo maha reer bani israa'iil haddii lagu eedeeyey dadkana wanaagga ma u sheegaysaan idinkuna wanaaggiiyo khayrkii ma ka tegaysaan oo naftiina ma hawlamaysaan ummaddanna waa la midoo ninka khayrka sheegaya waxaa la rabaa inuu ummadda uga horreeyo oo isagu la yimaado oo sameeyo oo wixii uu reebayeyna ka tago wuxuu ummadda sameeya la hora inuu sameeya la doonaya macana ata'muruna ma amraysaan annaasa dadka bilbirri samaha iyo wanaagga miyaad amraysaan iyo khayrka oo watansawna ma halmaamaysaan oo ma ka tegaysaan anfusakum nafiyaalkiina ma ka tegaysaan walxaal antum idinku tatluuna aad akrinaysaan alkitaaba kitaabkii tawreeda idinku akrinay afalaa tacqiluuna war miyaadan caqli lahayn oo garasho lahayn wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta oo kaashada wasalaati salaadana kaashada wainahaa salaaduna kabiiratun midii weyn weeye oo culus ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucaya dushooda mooye kuwa qalbigoodu ilaahay uu u xasilay oo ilaahay u khushuucsan kuwa dushooda mooye aladiina kuwaasoo yadunnuuna dhanniga hadda yaqiin baa laga wada yadunnuuna og oo huba annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan wa annahum iyagu ilayhi xaggiisa raajicuuna inay u noqonayaan mid baa la ogyahayo mar walba oo xusuusta aakhira qalbigaaga ay ku badato daacaadkay ku dhadhamayaan mar walba oo xusuusta aakhira qalbigaaga ay ku yaraatana daacaadka dhadhankoodii baa kaa macnaa waxa weye qalbigii uu yani qalbigi waa dhibsanaya saas way macna yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusa nicmatii nicmadeyda xusuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum dushin nicmooyinkaan idinku nimceeyen xusuusta wa annii aniguna fadaltukum inaan idinka fadilay cala alcaalamiina uunka inaan idinka fadilay middaa xusuusta nicmooyinkii bannaa xusuusta mid baa laga sheegayo inaan uunkao dhan idinka fadilay oon dheeraad idinka siiyeyna xusuusta ma makhluuqaadkao dhan ba saa in loo daayaa fiican ma ummaddan xataa may ummaddan aayad kale ka soo reebtay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas baa ummaddan soo saartay saas maana cumuumka sidiisaa lagu daynaya ummadihii kale oo dhan waxa ugu fadli badnaa reer bani israa'iil soo maha laakiin ummaddan ma gelinoo cumuumka waxaa ka soo saartay aayadda fii suurati aan ugu tegi doono aali cimraan oo odhanaysa idinka ummatu muxameda ugu khayr badan ummadaha saasaa soo saaraysa maana ayib wattaquu ka cabsada bu rabbi subxaana watacala oo iska jira yowman maalin iska jira maalin cadaabkii iska jira maalinkaasoo laa tajzii ayna gudaynin nafsun nafi can nafsin nafta kale shay-an waxba ayna ka gudaynin maalin aynan nafinan nafta kale waxba ka deeqaynin oona ka gudaynin walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa nafta xaggeeda shafaacatun erge aan laga aqbalin walaa yu'khadu aan laga qaadaynin minhaa nafta xaggeeda cadlun furasho aan laga qaadayn madax furasho walaa hum amayna aynan ahaanin nafafyaalkii yunsaruuna kuwa loo gargaarayo maynan ahayn war reer bani israa'iilow iyo inaguba dadka maqlayow waxaad iska jirtaan maalin ayna nafina nafta kale waxba u tari karin waxba kama celin karto waxba kuma tari karto waxba kuma biirin karto ergana laga aqbali maayo maxaa laga wadaa shafaacada waxaa la yidhahdaa ruuxa codsigiisa intaad sii qaado ciduu wax ka doonaya inaad ugu geyso iyo shafaacada la yidhahda waxaana shafaacada lagu magacaabay codsigii uu ku keensaday iyo adiga codsigaagii baad isku lamaaninaysaa ila shafciga lamaanin baa la yidhahdaa intaad isku lamaanisaad u geynaysaa ruuxii aad wax uga rabtay marka cid erga ah oo intuu yimaado ilaahay ula hadli ama arrinkooda kala hadli oo laga yeelina ma jiro haye waxaad saddexaysaa maalinkaa isaga a madax furasho laga yeeli maayo shaygan ha layga qaato ha laysii daayana laga yeeli maayo wax u hiiliya ma la helayaa intaa la waaye maya ee wax u hiiliyana ma jirto maalinkaa waxa weye waa adiga iyo camalkaagiyo naftaada wey wax kaloo sugtaa ayaysan jirin maalinkaasaa dambeeye war isjira wattaquu iska jira yowman maalinkaasoo laa tajzi aynan gudaynin nafsun nafi can nafsin nafta kaleeto shay-an waxba aynan ka gudaynin shay-an waa nakira fii siyaaqi nafyi baa la yidhaahdaayo
عموم بفايديسة وحبيرات مالك أن في أي نفق تركت أو كجود كرت ولا يقبل الأقبل ما منها نفط حق هذا شفاعة إرجال يعقبل ما ولا يأخذ القادم ما منها نفط حق هذا عدل فرش لك قادم ولا فرش ولا هم مرعنا أن ينصرون كل الله اليوم إذن هي لسنه لما يهوي معنا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب مركضوا اسكتش أذوه اسكتش منه تشن شفاعة الذي دين اللي هي إرجال أقبل مايو قال إرجال أقبل مايو روح قال ما هي الشرك كل انتي روح إلهي أرنكي سكرها اللي كرمجر لكن روح المؤمن كا الدنبية كل انتي شفاعي إرجال ليه ويا إرجين يا ملائكة إرجين ورسوشة إرجين ومؤمنين إرجين وإلهي الله سبحانه وتعالى لكن meesha waxa ku jira inay doonto ergada la ergeynaya shuruud bay leedahay muuminka la ergeynaya laftiisa shuruud leh wax hadda adduunka lagu si ballan qaadi karma oo hebel uu ku dhigi karo aniga isku kay halle sheekh hebel baanayo ilaahay agtiisa wax weyn baa ii yaale isku kay halle waxa isdhimi muridkaygii baa tahay warkaas war jira ma استجاب النفس مالك تقبل تجد تنقرني واذكر واحد واذكر حصوصا من بني إسرائيل نعمين كي وقل ولا فرنية إذ وقت حصوصا نجيناكم آل بن بدادني وآل بن سمطبحني من آل فرعون قوم كسية دك كسيبار من كسمطبحن يصومونكم وحي إذن لدنسينيا يصومونكم وحي إذن لحريرين يا ولدها وحي إذن لتشرين يا إذن لدون يا ولدها waxay idin dadasiinayaan oo idin daadsinayaan waa leeyahay inta ka dambe يعني من آل فرعون يسومونكم waxay idin dadasiinayaan ama idin daadsinayaan suu al-adab adab kawuxun adabkiisa ugu xun bay idin daadsinayaan maxay adabkaas yudabbihuuna waxay gowracayaan abnaakum wiilashina wayastahyuuna waxay daysanayaan oo ay nolosha ku reebanayaan nisaakum dumarkiin gabdhihiin وفي ذلك أرنكينا دحي سنة وحا كسوغا بلاء امتحان شرمت با كسوغا ومن ربكم حق ربكم كأهالي عظيم الأوين ربنا إسرائيل ولا قميسين شري فرعون با قميسين شري إيا قوم كيسي أو قبليين تيا من أنت أسا قميسين شري مركا قميسي دحن بالقميسين شري هي قميسي ياس وكا قرآن كفري وحيا كتبت بلين فرعون أيها رياضي wuxuu ku riyooday isagoo boqortooyadiisa iyo madaxnimadiisu ay baaba'dayo nin reer bani Israa'iil sababtii ay ku baaba'day wuu riyooday riyadii baa loo fasiray riyada tafsiirkeedii baa marka wuxuu noqday boqortooyadaana waxaa baabi'in doona nin reer bani Israa'iil ka dhashay waa inuu marka ka hortago wuxuu yidhi marka wiil kastoo reer bani Israa'iil ka dhasho hal gowraco gabdhahoodana inoo daayahay inoo shaqeeyo jaariyado كلها كشقيو ويل ألا ويل كده شبه صباح دول شبه الله يورحين مركوسا دول شبه لك ديك الله دري سيقومين سألوا حما وحية ملح واحد يسوي كلا أدوه مصامرين ورقومين سيجي ساعها الله إذن كساري بل نعمده إذن كان حسوس سو النعمة وين ما نعمنا مهل ما انتر بني إسرائيل ومعنا واذكروا حصوص بني إسرائيل إذ وقت نجيناكم آل بن سمطبح إلي من آل فرعون بدكي سيعني بن كسمطبح إلي يسومونكم معي إذنكم سمينيين يسومونكم وحي إذن داكسينيين وأي إذن دادنسينيين سوء العذاب عذاب كيس ووحن عقاب فوحن بيد مرينيين يذبحون وحي قرعيين أبناءكم ويلشين ويستحيون وحي ديسانيين والريمانيين نوشا كو ديساني كو ريمانيين نساءكم دمركين من نوشا كو ديسانيين سيبو الشقيان وفي ذلكم كيما تحدينا تحدي سواحا كسوهم كالي بن كسمينه بلاء ما كسوهم تشربدي امتحان الله إذن امتحاني ومن ربكم حق ربكم كأهاتي عظيم الأول مركب بدالة إلهي كويسك إذن كساري عدو جنين على جميلة الحسوسين واذكروا حسوس بني إسرائيل إذ وقت فرقنا أنكلق يعني أنكلق بحني واذكروا حسوس إذ وقت فرقنا أنكلق بحني بكم إذن كالسببتين أيام كالقلمون كالبحني البحر الضدي أيام كالبحني فأنجيناكم مركاسام إذن بدادني وأغرقنا وحن ما شيني أو آنو حفني بيكو حفني آل فرعون ذاتكيس والحال بانصايا لأنتم إذنكم تنظرون آثير نساء روح الأسطان مركي بدل إذن كانت شيحي وست ترتيب أقول لحمرتين
cadowgiinniyo idinka dambeeyo fircoon iyo ciidankiisii ana idinkoo indhihiinnu shan yihiinoo fiirinaya meeshaa ilahay ku baabiiyey subxana wa tacaala ninkii saa kuu geli jiray oo subax ilaahay ku badbaadiyo bannaanka ku keenay dawladda calankeed baa ugu mulamaysa nebi muuse hogaaminaya calayhi salaam gumaysigii bay ka baxeen intaa waxaa u dheer cadowgoodii oy arkayaan baa hortooda lagu halaagay wartaamiyadan xusuusnay wadkuruu xusuusta id waqti faraqnaa aan kala yani waxa wey kala bixinay oon kala dhigna wey bikum idinka sababtiina albaxra badi waxay ahayd yani waan u tegi doonaa nabi muuse hogaaminaya la soo cayrsada fircoon iyo ciidamadiisi baa ka daba yimid badda usha ku dhafaa la yidhi nabi muuse calayhi salaam markuu badii ku timid baa usha ku dhufalay ushii markuu ku dhuftay yani waxa wey laba qaybood oo waaweyn bay kala laba burood bay noqotay oo badda biyaheediibaa xag iyo xagga u kala istaagay dhex bay mareen markay baxeenna fircoon oo daba socday baa lagu halaagay saas wey macana ayib faanjaynaakum markaasaan idin badbaadinay oo waaqraqnaa waxaan maanshaynay biyaha laysku halaagaa la yidhahda aqraqnaa waxaan maanshaynay oon hafinay aala fircawna fircoon qowmkiisii walxaal antum idinku tanduruuna aad fiirinaysaan wadkuruu waxaa kalood xusuusataan id waqti waacadnaa aan la ballannayoo la yaboohtannay muuse 40 laylatan 40 habeen markay dhamaystiranto uma kadibna ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla dibigii baad ilaahan ilaah ka dhigateen min bacdi muuse gadashi muuse markuu idinka tegay baad dibi samaysateen walxaal baad dibigaa samaysateen antum idinku daalimuuna kuwa gardaran aatiin gaala mushrikiin aatiin wey macana daalimuuna bimacnaa mushrikuuna idinkoo shirki ku dhacay uma markay kadibna cafawnaa waan cafinay cankum xaggiinaan iska kiin cafinay min bacdi dalika kaa kadib lacallakum tashkuruuna si aad u shukridaan tanina waxa weeye khalad baad gasheen khaladkaad gasheen wuxuu ah nebi muuse calayhi salaam buu ilaahay ballan la galay wuxuu ku yidhi markii 40 beri ka soo 40 maalmood markay soo wareegto meel hible imow weliba markii hore 30 beri baa loo qabtay 3 haween kadibna 10 baa lagu dhamaystiray ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة أفرتن هذه المركة لما يستنتمين هبل إمو بالي نبي موسى ومركة بدأ صوبة كده نبي موسى وصوت ماشي بسوء هذي ماشي مركو كسر مغنى أيام منك سامير لورنشل من أيام السعودي والشيطان أها باوحي السمي دبي موسمي انتو waxay wadaan macdan ay wadaan iyo xeelad isku dhalaaliyay buu dil u sameeyay dil ciyahayo oo dabaysha markay gasho macnaha wax way dhawaaqayo sida dilka u xeeyay iyuu sameeyay markaasuu yiri war nabi muuse ilaahiisi waa halmaamay yaani waa kan ilaahi niyo kan caabuda reer bani israa'iil waaba nimankii la soo badbaadiyay oo intaas oo rafaan laga soo bixiyay diligii way isu daba istaageen diligii way isu sameeyeen macna marka diligii baad ilaah ka dhigateen muuse markuu idinka tagay kadib idinkoo dulmi ku kacay maxay yeelay dhagaxankaas la isku ururiyo macdanta la ururiyo la dhalaaliyay maxay tari maxay wax idinku qabanayaan hadda kor soo dulmiga gardarna ma intuu ilaahay idin badbaadiyay haddana inaad dibi uga xirataan oo dibi aadamna caabudaan waa dulmi baad ku kacdeen intaa markaad gashay waan idin xafinay waata nicmada la doonayo inay xusuustaan waa mid waan idin cafinay oo waan idinka dhaafnay arrinkaas si aad u shukridaan waxaad xusuusataan id waqti waacadnaa aan la yaboohtannay oo la ballanay muuse 40 laylatan 40 habeen ay tamaama 40 leylo 40 maalin marka dhamaystirantaan la ballanay uma kadibna ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla dibigiibaad ilaahan ka dhigateen ilaah ayaad ka samaysateen min bacdihi markuu muuse tegay kadib oo idinka tegay walxaal antum idinku daalimuuna kuwa dulmi sameeye aad tihiin uma kadibna cafawnaa waan cafinay cankum xaggiina min bacdi dalika kaa kadib baan idin cafinay ay min bacdi dalika kaas oo ah dibiga caabuddiisa kadibna waa idin cafinay lacallakum tashkuruuna si aad u shukridaan waxaa kaloo xustaan wadkuruu waxaa kaloo xustaan id waqti aataynaa aan siinay muuse alkitaaba kitaabkii markaan siinay tawreed ahaa waalfurqaana iyo xujooyinkii xaq iyo baatilka kala bixinay lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan ama lacallakum waxaa mudantiin tahtaduuna aad hanuuntaan waxaa kaloo reer bani israa'iil oo laydinku nimceeyey kitaabkii tawreed ahaa ee qiimiga badnaa buu ilaahay muuse idinku soo dhiibay calayhi salaam xujooyin iyo aayado cadcad oo baatilkii xaqa kala saarayana wuu idiin soo dejiyey si aad u hanuuntaan oo ilaahay jidkiisa quman aad u raacdaan way macnaha saas weeyaan marka furqaanku waxaa dadka in badan maskaxdooda macnaha ku jirtaay iyo maankooda furqaan in la yidhaahdo qur-aanka in furqaan loo yaqaano diinta islaamka saas ah maaha
furqaanku waxaa la yidhahdaa xujo kastoo xagga ilaahay ka timid oo xaq iyo baatil kala saaraysa furqaan baa la yidhahda waxaana halkan laga wadaa kitaabkii tawreedaha waxaa garab socday aayado waaweyn oo 9 ahaa oo ilaahay uu reer bani israa'iil wax ku tusayey marka mucjizaadkaasa laga wada furqaanta noqonaya macna wadkur udkuru xusa reer bani israa'iilow id waqti aataynaa aan sinay muuse aanu sinay alkitaaba kitaabkii tawreedaha bilijmac weynkaa laga wado walfurqaana iyo kuwii xaq iyo baatilka kala saaraya xujooyinkii xaq iyo baatilka laydinku kala saaraya wax laydinku cadaynayay lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaanoo jidka saxda u raacdaan wadkuruu waxaad xusustaan sidoo kale reer bani israa'iilow id waqti qaala uu yidhi muuse liqawmi qowmkiisa uu ku yidhi yaa qawmi qowmkaygiyo inakum idinku dalamtum waa dulmideen anfusakum nafafyaalkiinaad dulmideen biitikhaadikum samaysigiina darteed baad ku dulmideen samaysigiina dartii baad ku dulmideen alcijla dibiga aad samaysateen ilaahan ilaah aad ka samaysateen dibiga aad ilaah ka samaysateen daraaddeed baad naftiina ku dulmideen ee fatuubuu noqda ilaa baari'ikum allihii idin abuuray u noqda oo faqtuluu dila anfusakum nafafyaalkiina dila dalikum kiina oo inaad islaysaan ah baa khayrun idin khayr badan lakum idinka cinda baari'ikum allaha idin abuuray agtiisa saasaa idin fiican fataaba halkaa waxaa ku jirta way islaayeen fataaba markaasuu ka toban aqbalay faqataltum anfusakum dheh naftiinaad layseen oo markaa waad islayseen fataaba markaasuu alla toobad aqbalay calaykum dushiina maxaa yeelay inahu alla huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan way arraximu oo naxariista badan tanina waxay ahayd nabi muuse markuu soo noqday oo socdaalkii ka soo noqday ballantii alla subxaana wa tacaala ayuu wuxuu u yimid ayagoo dibigii caabuday markaasu wuxuu ku yidhi warniyo khalad baad gashay naftiinana dulmi iyo gardaraad usoo jiideen dibigan aad samaysteen ilaha ka dhigateen daraaddeed maxaa yeelay shirki baad ku dhacday dulmi ka weyn ma jiro ee rabbigiin usoo noqdo toobad keena seen jidkeen marnaa wey jidkaad maraysaan oo toobadda u maraysaan innaga maxaa laynooga baahaya markaan toobad keenin inaan ilaahu noo dambi dhaafna wixii horena ka qoomamoonno dibna inayna ugu noqon inay go'aansanno hal yani arrin ruuxu samayn kar wey sooma ayaga laakiin waxaa lagu yidhi jidka idiin furan waxa way inaad islaysaan saasaana idiin khayr badanoo inaad dembiga kusii jirtaan saasaa ilaahay agtii idiin khayr badan waa islaayeen marka gamtay isu istaageen inta laba safna noqdeen waa sidii laysugu waday seefaha bay intaasoo ruux iska dileen halkaasuu ilahay kaga tooba aqbalay subxana wa tacaala fataaba calaykum alla subxaana wa tacaala dushiina waa ka toobad aqbalay allana subxaana wa tacaala toobadda addoommadiisa waa ka aqbalaa waana u naxariistaa ilahi subxana wa tacala saas way macna waa meelaha shareecadeennu ay khafiifisayoo yani waxa weeyaan sida ummadihii hore ilaahu culayska aad u saartay annagana ha noo saarin meelaha laynaga fududeeyey bay ka mid in yaroo fududoo yani ruuxu ilaahay waafajiyo u fudud ayaa laynooga dhigay innaga saas way macna wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti qaala uu yidhi muuse uu yidhi liqawmi qowmkiisa markuu ku yidhi yaa qawmi qowmkaygiyow inakum idinku dalamtum waa dulmideen anfusakum nafyaalkiina war tolkayow naftiina waa dulmideen maxaad ku dulmideen biitikhaadikum samaysashadiina darteed baad ku dulmideen alcijla dibiga aad ka samaysateen ilaahan ilaah aad ka samaysateen midaad caabudaan aad ka dhigateen ee fatuubuu noqda ilaa baari'ikum mid allaha idin abuuray u noqda baarigu waa khaaliqa wey midka idin abuuray u noqda faqtuluu dila anfusakum nafafyaalkiina dilo islaaya dalikum kaa oo inaad islaysaan ah sidaana laydinkaga toban aqbalaa ayaa khayrun khayr badan lakum idinka cinda baari'ikum ka idin abuuray agtiisa saasa idin khayr badan allaha idin abuuray agtiisa saasa idin khayr badan leanna inaad islaysaan toobadna laydinka aqbalo jannana gashaan iyo inaad dembiga intaad ku dhimataan naar gashaan keebaa fudud keebaa khayr ku jira dil adduunya dhimasho adduunya dhimal waa la wada dhiman sooma laakiin dhibaata waa cadaab aakhira wey saas way macna ayib fataaba wuu toobad aqbalay alla calaykum dushiinu idinka toobad aqbalay waa intii soo hadhay intii la laagay mooye intii soo hadhay weye fataaba calaykum intiina soo hadhay waa laydinka toobad aqbalay inahu alla huwa isagu attawaabu waa midka toobad aqbalka badan weye alraxiimu oo naxariista badan wey wadkuruu waxaad haystaan sidoo kale wadkuruu xusa oo xusuusta reer bani israa'iilow id waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusow lan nu'mina rumayn mayna laka adiga kuu rumayn mayn warka kaa rumaysan mayn iyo waxaad sheegayso xataa nara allaha ilaa aan alla aragno jahratan si cad ilaa aanu aragno si cadaan ah ayib faakhadatkum waxaa idin qabatay saa markaad dhahdeen assaa'iqatu biriqdi baa idin qabatay
naartii samada ka timid baa idin qabatay walxaal antum idinku tanduruuna aad fiirinaysaan uma markaa kadibna bacatnaakum waan idin soo saarnay oo waan idin soo noolaynay min bacdi mawtikum dhimashadiinna kadib lacallakum tashkuruuna si aad u shukridaan ama lacallakum waxaad mudatiin tashkuruuna inaad shukridaan waxay ahayd nabiyullaahi muusa calayhi salaam saan siduu u tegi doona fi suurati alacraaf walama jaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu yani reer banu israa'iil 70 nin oo ka mid ah واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا 70 reer bani israa'iil ka mid oo xul ah ayuu nabi muuse la tagay calayhi salaam meeshii ballanta buu aaday ballanta kalloqto ilaahay inuu yiri waxay ka cudur daaranayeen baa laleeyahay dadka loo yeedha 70-ka khaladkay galeen bay ka cudur daaranayeen markay tageen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi muuse hadalkiisa maqashiyey ayaguna hadalkii maqle markaasa waxay yidhahdeen muusow anagu hadal la maqlayo wax dhahaya anagu ma garanayno kunugumana fille allah aad sheegayso isha noo saar bay natus haddii kale si cad natus haddii kale kaa yeermin markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala saaciqa mid suuxisa ayaa lagu qabtay oo samada lagaga keenay ma naar bay ahayd ma wax kale ahayd saaciqana waatan soo marna biriq baa la dhaha laakiin wax suuxiyey inbaa ku yimid markaa wey markuu nebi muuse calayhi salaam uu leeyahay ilaahu haddaad kuwan halaagto reer bani israa'iil seen ugu noqon ee dib loo nooleeyey iyagaa dib baa loo soo kaakiciyo markaasaa la soo nooleeyey iyagii nebi muuse wada socdaa soo wada noqday macna marka taasina mid bay ahaydoo khaladay galeen bay haddii ilaahayba subxaana wa tacala rasuul usoo diray intaasoo nicmana u galayoo baddii iyo dhibaatooyinkeedii ka badbaadiyey gumaysigii fircoonna ka badbaadiyey allaha intaasoo dhan u samaynaya aayadihiisi iyo astaamihii weyweynaaye kutusayna ay ku dhex jiraan na tus qanci mayna inaanu isha saarna mooye soo garbariyo macangegnimo maaha waa macangegnimo meeshii ugu dambaysay way macnaha marka saas daraaddeed baa loo saaciqadu u qabatay ayagoo weliba fiirinaya oo wayba suuxeenaysay ku fiirinaya markay qabanaysay oo ku bilaabanaysay intaysan suuxin bay arkahayeen indhahooday u muuqatay ayagoo arkaya dhaadhaceen oo daateen macnaha saas weeyaan wadkuruu waxaad xusataan id waqti qultum aad tidhahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina rumaynmayno laka adiga kuu rumaynmayno kaa rumaysan mayno waxaad sheegayso xataa nara allaha ilaa aan alla aragno jahratan si cadaan ilaa aan u aragno si aan qarsoodi ku jirin ishanadu ilaahay qabato فأخذتكم واحد إذن قبطي مركة الصاعقة تيسوا حين يسمع إذن قبطي والحال أنتم إذنكم تنظرون أثير نيسان بريق ليسوا حين يسمع النار في سمرة كتير با إذن قبطي إذنكم فيرين ثم كذب نبعثناكم وأن نصوصار من بعد موتكم ديريد كذب من نصوصار لمركة لمتين كذب أيام من نصوصار وليني مولين بالغير معنا لعلكم واحد مدنتين تشكرون إلى الشكر وكم هالعلم النعمية إله إذن قال سبحانه وتعالى غير بن إسرائيل وظللنا ماشا لليه إله النطص إليه سيدا نتفق دونه إله سبحانه وتعالى أدوية ولو ما أركي كرم حديث صحيح أي قصة ربك ما أركي كرتان إلى أتكلمتان لكن أهل السنة والجماعة عقائده بالصحبة وحكم أصول أهل السنة والجماعة وحكم قرآن كريم السنة رأي اتباحين إما أنت قيامنا ضدكم ومن الرب والأرك دونه سبحانه وتعالى متواتر يا حديث كوسا أرنتي لكن قل يوم اعتزل الإلهية لمن خرجا بعقيدة خلاف سنة وننتقدنا إن شاء الله تعالى وظللنا وانهريني ظللنا وانهوصيني عليكم دشينا وحن لكم هوصيني الغمام ضروره وأنزلنا وانصودجني عليكم دشينا وحن لكم صودجني المن منجي والسلوى سلوه من صودجني وكذا وحن لكم كلوا عرق من طيبات ما شيء ورقيالك عنا رزقناكم أن نكون رزاقنا وما ظلمونا عين الظلمين ما كي عاصمين الدم يقوك عين ما ظلمونا عين الظلمين ولكن كانوا وحيساها أنفسهم نفذيالك يظلمون كود المبيعين وحكرا النعماء في بني إسرائيل مقالة ليجقلا مقالة ونتجدوا مقالة لي لمنك كنت شيرنا كفرطة ويديدن فليين بيهايون قبوي ويديدن حين هذا النماش هو اليوم حب لما نوجد تيمين لقري كرماء تيمين لك نقري ولا روح الوجود المالي السعوداني المالي وتشير أي قروين أفرطن سنتيها كتيرين أفرطن كي سنتيها أي كتيرين بالله حنانين سبحانه وتعالى
ha wareersanaadeen haddana xanaana ku socoto qoraxdiina waa laga hadheeyey cunto bisiloo diyaarana waa loo keenaya cuntada loo keenayo waxaa ka mid a manniga iyo salwiga ka mid salwiga waxaa la yidhahdaa shimbiraha nooc ka mid a salwiga la yidhahda waa shimbiro kuuskuusan oo inta badan koox isu raaca oo macnaha waxa weeyaan waxay leegihiin baa laleeyahay kabarayda mataqaanaa kabarayday leegihiin xoogaa qiyaaskaas wey macnaha ayaa salwiga la yidhaahdaa shimbiro noocaasoo kalea marka loo keenaya iyagoo macnaha waxa weeye diyaarsan way cunayeen maniga aad baa loogu muransan yahay maniga culimada qaar ka mida waxay leeyihiin waxaa laga wadaa maniga yacni shay samada ka soo degi jirayoo sida xabagtoo kale ah malab bay culimada qaarkood daan lakin malab ma aha waa sida malabku u macaan yahay weligii miyaad aragteen xabag uu roob ku da-ay xabag roob ku da ma aragteen xabag roob ku da-ay sideedoo kaleeto ama baashantaata macnaha waxa weeyaan koolada ah ee cad ee dhareerka ah sidaasoo kaleeto way macnaha habeenka niskiisa dambe iyo saqda dhexe buu samada ka soo degaa markaasuu geedaha dushooda iyo dhagaxyaanta dushoodu fuulaya subaxdii waagu hadduu beriya meeshaasay ka guranayaan sheekh tafsiirka noo akrin jiro ciraaqi ahaa wuxuu noo sheegay ilaa iyo hadda shaam iyo ciraaq adaraafteeda iyo inuu ilaa hadda soo dego xilliyada qaarkood oo la arko marka xabagta oo xabag la qooyey buu aada ugu egyahay saas way macnaha waana macaanya kaasi waa maniga culimada qaar ka mida ku fasiray tafsiirka igala fiican wuxuu yahay ibnu katiir iyo rag ka mida tafsiirkay dooranayaan bukhaarina inuu doortay aada moodo maniga in la yidhaahdo waa wax walbo ilaahay ku galladaystay nicmooyin fara badan baa markaa soo gelaya soo maa marka manigu waa gallad wey ma aha shay khaasa ma aha waxaa soo gelaya shaygaa soo daadanayay nicmooyin kaleo fara badan baa soo gelaya waxaana loo daliishanaya xadiidka saxiixulbukhaari iyo keyrka ku soo arooray ee nebigu yidhi sal ly waslam alkam'atu min almanni aladii unzila calaa muusa calaa bani israiil kam'ada baasha la yidhaahdo maxay ahayd dabayuluqdu waxay ka mid tahay manigii lagu soo dejiyey reer bani israiil dabayuluqdu waa taqaana yani waa baal baadiyaha ka baxdo daba ballaadhan oo markay bislaato yani waxa weye macaan baashaasi marka waxay ka mid tahay manigii reer bani israiil lagu soo dejiyey waxaa laga fahmay marka inay taana ka mid ahayd geedkaa soo daadanahayee malabka u egna uu ka mid ahaa waxyaalo kalena ay ka mid ahaayeen marka maniga waxaad u daysaa waa waxyaabo badanoo ilaahay ku galladaystay baa soo gelaya sidaa iska dhe macnaha saas weyaan wadallalnaa waan hadhaynay calaykum dushiina waxaanu ku hadhaynay wadallalnaa waan hoosaynay oo waanu hadhaynay calaykum dushiina alghamaama daruurtii baan idinku hadhaynay oo qoraxdii baa laydinka xijiyey wa anzalnaa waan dejinay calaykum dushiina almanna galladii baan idinku soo dejinay galladii shaygii iska diyaarsanaa barwaaqadii diyaarsanayd ee aydan ku dhibaatoonin baanu idinku soo dejinay wasalwa shimbirihii kuuskuusnaana waan idin soo dejinay kuluu markaasaanu idin nidhi cuna yani waqulnaa lakum waxaana markaa idinku nidhi kuluu cuna min tayibaati maa shay wanaagyaalkii cuna rasaqnaakum aan idinku irsaaqnay waxaas diyaarka ehe laydiin diyaariye laydinku irsaaqay wanaagiisa cunoo daaqa laakiin maxaa laydinka rabaa ilaahay u shukriye oo ha kibrina ma sameeyeneed maya way caasiyeen hadday caasiyeenna ilahay uu ka argosto wamaa dalamuuna namayna dulmiin buu rabbi subxana wa tacala hadday cisyaan iyo dembi ku kaceen annaga maynana dulmiin maxaa yele ilahay mama dulmin karaan ma ilahay bay dhib u geysan karaan wamaa dalamuuna namayna dulminin walaakin kaanuu waxayse ahaayeen anfusahum nafafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulmibe dhibkay la yimaadeen iyo dembigay galeen dhibaatadii ka dhalatay iyagoon bay kusoo noqotay ilahayna waxba mayna yeelin addoommadiisana waxba mayna yeelin hada billahi tawfiq sal allahu wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam